munaasabad lagu soo dhaweynaya mudane cabdirashiid abuukar cabdi oo ku guuleystay doorashadii golaha deegaanka ee magaalada Odense ee dalka Denmark oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Odense. balse markaan aan u gudubno munaasabad lagu soo dhaweynaya mudane cabdirashiid abuukar cabdi oo ku guuleystay doorashadii golaha deegaanka ee magaalada la yiraahdo Odense ee dalkaasi Denmark ayaa waxaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana munaasabadaas soo qabanqaabiyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi Odense ee dalkaasi Denmark. warkaasna waxaa Denmark ka soo diray Faarax Yaasin Cusmaan. xaflad ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ku nool magaalada Odense iyo gobolada u dhow ayaa lagu qabtay magaaladaasi. xafladda oo ahayd soo dhaweyn iyo hambalyeyn xildhibaan Cabdirashiid Abuukar Cabdi oo ku guuleystay doorashadii loogu tartamayay ka mid noqoshada golaha deegaanka magaalada Odense. Og nummer 29 Abdirashiid Abdi valgt ind for Alternativet. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha xildhibaan Cabdirashiid Abuukar Cabdi ka mid noqoshada xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Odense. marka Cabdirashiid waxaan rajaynaynaa insha Allah shalay iyo sanadihii u dambeeyay haddii uu keligii uu dadaalayay oo dadkiisi uu istaagnaa uu caawinayay keligiis laakiin awoodiisii ay koobneed maanta wuxuu fadhiyaa xarunta iyo goobta awaamirta iyo go'aanada siyaasadda Odense meesha ka soo fushay taasoo ah uu fadhiyo qofku hadduu wax qabto oo aan lala shaqeynin ama aan sida Cabdirashiid badan aynaan helin far kaliya forma saddex farxadood ayaa meesha lagu kulantay Cabdirashiid oo xisbiga ahaa inaan soo saarno inaan ka dhigno ninka koowaad iyo inaan u dooranay aan macnaha ninka inuu mid Soomaali yahay oo dadka ku kala Cabdirashiid idinka ayaan ayaa umaleysay wallahi billahi tallahi malaali oo lasa waa ninka kaliya maanta badbaadin karo indhaha kala furno Soomaaliyeed caawa halkan waxaa u joognaa saddex kun xisbi alternative la yiraahdo oo golaha deegaanka Odense aan ku jirin ayaa sabab Soomaali waxay u noqotay inuu soo galo golaha deegaanka musharaxeeni xildhibaan Cabdirashiid waa musharaxii ama xildhibaankii ugu horeeyay ee xisbi hogaaminaya ee Soomaali ah ee gala golaha deegaanka guusha saddexaad waa mid ugu adkeed uguna sahlaneed cod aqlabiyad leh laakiin isku duubni wada tashi wada shaqayn ayaa keentay inuu Cabdirashiid uu soo galo idinku codsanaya Soomaaliyeed waad aragtaan waxbaad noqon kartaan waxna waa soo saari kartaan waxna waa qaban karnaa isku duubni waa inaan helnaa. kadib waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdirashiid Abuukar Cabdi wuxuuna u mahadceliyay dadka codkooda siiyay iyo dadkii munaasabadaasi ka soo qayb galay hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa inaan barna carruurteena waxay dhici doonta taariikhdan waa arki doontaan carruurtaan dhalnay iyagoo walaala ah inay kala noqdaan midig iyo bidix isbiyo kala duwan waa inaan gacan ku siino. xafladaasina waxay ku soo gabagabowday jawi farxad leh. Faarax Yaasin Cusmaan, Universal TV, magaalada Odense, Denmark.